mar kale waxaad kusoo dhawaataan barnaamijyadii aad halkan CT Plus Soomaali uga barateen. maantana waxaynu ku hadli doonaa waxyaabaha ugu hadalhaynta badan ee wadankan Canada. sidaad ogtihiin maciishada wadanka Canada aad ayay sare ugu kacday. waxaa wadankan ka taagan mushkilad la xiriirta dhinaca guryaha, haday noqon lahayd dadka raba inay guryo iibsadaan iyo haday noqon lahayd xitaa dadka raba inay guryo kireystaan. shaqooyin fara badan ayaa walaac uu ka taagan yahay in sanadahan soo socda siiba 10 sano ay fooda nagu soo haya ay gebi ahaanba la wareegto waxa loo yaqaano AI-da, artificial intelligence, oo teknolojiyad caalamka ku cusub. waxa uuna walaacaasi qayb ka yahay sababta keentay in hadda dadku ay ka warwar qabaan sidee wadankan Canada loogu noolaan doonaa sanadaha soo socda haddii dadku ay shaqo la'aan noqdaan. waxaan si gaar ah rabaa inaan uga hadlo shaqooyin badan oo dadkeena Soomaalida ah ee ku nool qurbaha, gaar ahaan wadankan Canada ay ka shaqeeyaan, ayaa ah kuwa targetka u ah in AI-du ay la wareegto. shaqooyinka ay dadka Soomaalida ah inta badan ka shaqeeyaan ee gacanta laga qabto ee soo noqnoqda marka maalin walba sidooda ah ee aan isbedelin, sida dadka ka shaqeeya meelaha hilibka laga qalo ama lagu sameeyo, ama sidoo kale dadka shaqeeya meelaha chickenka iyo warshadaha qaar oo iyagu markaa hadda ku tala jira sidii ay uga kaaftoomi lahaayeen shaqaalaha faraha badan ee hadda u shaqeeya, kadibna ay rabaan inay goobaha shaqadooda ay keenaan mashiino waaweyn oo aan daalaynin oo xilli walba shaqayn kara, kuna shaqaynaya teknolojiyada loo yaqaano AI-da. taa sidoo kale waxay keentay in baarlamaanka wadanka Canada loo gudbiyo sharci cusub oo ku saabsan sida qof kasta oo wadankan Canada ku nool uu ku heli karo nolosha asaasiga ah dhaqaale ku fulan, sida inuusan qofku ka warwarin wuxuu cuni lahaa, kirada gurigiisa iyo noloshiisa caadiga ah ee basic loo yaqaano. arrintan waxay daba socotay barnaamijyo hadda ka hor la isku dayay oo iyagu markaa ku saabsanaa waxa loo yaqaano Universal Basic Income, oo ah barnaamij ay wadamo badan ay hore isugu dayeen, sida wadanka Finland oo kale uu isku dayay oo kale, iyo sidoo kale gobolka Ontario oo hadda ka hor qayb ka mid ah barnaamijkaasi isku dayay inuu dhaqan geliyo balse socon waayay oo markaa mucaarado fara badan la kulmay. hadda waxaa baarlamaanka wadanka Canada horyaala oo akhrintiisu ay socotaa, kana soo gudbay tii koobaad iyo tii labaad, haddana ay u dhiman tahay tii saddexaad in markaa la meel mariyo ama markaa dowladda laga dhaadhiciyo inay la timaado mashruuc u dhigma barnaamijkaasi oo kale, oo ah in qof kasta oo ku nool wadankan Canada uu helo nolosha asaasiga ah lacag ku filan. inkastoo sharciga hadda baarlamaanka horyaala oo marka uu soo gudbo haddana markaa golaha sanadka markuu kasoo gudbo usoo gudbi doona House of Commons usoo gudbi doona, haddana 3 jeer akhrintiisu ay halkaa ka dhici doonto, ayaa uusan sheegaynin sida uu barnaamijkaasi u dhacayo ama dhaqaalaha qof walba oo filan karo in la siiyo. laakiin waxaa la hadal hayaa inay dhici karto in laga tusaale qaato barnaamijyo hadda ka hor wadankan ka hirgalay oo uu ka mid ahaa barnaamijkii lagu caawinayay dadka markii uu koronaha wadankani uu ka jiray, kaasi oo dadku inta badan ay helayeen lacag u dhiganta $2,000. weli ma cadda taasi, laakiin dad badan waxay leeyihiin haddii barnaamijkan uu dhaqan galo waxaa dhici karta in qof kasta oo ku nool wadankan Canada uu helo dhaqaale u dhigma 2,000 iyo wax noocaas oo kale ah oo bil kasta ah, isla markaana ay noqoto wax soconaya oo qofka aan wax shuruudo lagu xireynin, si lamid ah sida dadka cayrta qaata oo kale oo runtii aad loo dhibo oo markaa waxyaabo badan laga rabo inay sameeyaan. waxaa xusid mudan inay jiraan mucaarado fara badan oo barnaamijkan uu la kulmayo, oo la leeyahay haddii barnaamijkan la hirgeliyo dad badan waxay noqonayaan kuwa leysi ah oo aan shaqaysan, waxba aan qabanin, guryaha iska fadhiya, aan naftoodana horumarin. marka waxaa dad badan ay leeyihiin dowladdu inay ka fiirsataa in barnaamijkan la hirgeliyo, balse ma cadda. waxaana la ogaan doonaa marka uu kasoo gudbo dhammaan qaanuunkan uu soo gudbo iyo sida ay dowladda ka yeeli doonto iyo lacagta dadkaasi ay heli karaan inta ay noqon doonto. waxaan idinla socodsiin doonaa hadba meesha barnaamijkaasi uu marayo. muuqaalada soo socda ee barnaamijkeena waxaan ku weydiisanaynaa inaad barnaamijkeena follow ku samayso haddii aad TikTok naga daawanayso, iyo sidoo kale haddaad YouTube naga daawanayso ama Facebook meel walba naga daawanayso inaad la socoto barnaamijyada CT Plus Soomaali oo Soomaalida Canada inta badan ka hadla.